Soo dhawaada dhammaan saaxiibayaal. Mowduuca muuqaalkan waxaa marka lagu ciyaari doonaa yarkan Xasan Ismaaciil oo dabcan aan wada hadalnay muuqaalkii xalay toole markaa soo geliyay kadib dabcan akoonkiisa 4,000 oo dollar ku jirta markaa uu bilaabayay waxaan ku wada ballanay inaan u gaarsiiyo 8,000 ilaa 10,000 hadirtana akoonka waxaa ku jirta 5,000 oo dollar oo dabcan ballantaaba waxay ahayd lacag walba oo dabcan qofka uu ciyaarayo x2 inaan u gaarsiiyo laakiin maadaama lacagta ay badan tahay barashirkeeda waxaa qabsaday saacado fara badan si aan meeniska isaga ilaaliyo oo risk aan u qaadanin waana sababta keentay 27 saacadood kadib haddana inaan markii labaad ciyaarayo anoo waliba 1,000 oo dollar kaliya profit hayo 3,000 oo dollar aan targetkeyga ka dhiman laakiin waxaan rabaa 10,000 inaan gaarsiiyo 10,000 haddii aan gaarsiiyo 8,000 dabcan isaga qaado doono 2,000 aniga qaado doono oo dabcan ballanteena sidaas ahayd haddana 5,000 akoonka ku jirto soo markaad waxaa bilaabaynaa inaan si easy ah usoo kabano walibana lacagta u aruursano gamekeeni koowaad hadda ka qayb qaadanay game koowaad hadda waa ku khasaarnay dabcan mid labaad hadda galeynaa laba game hadda ku khasaarnay dabcan $7,343 hadda akoonka ku jirto keliyana targetkeyga waxaa iga dhiman 600 iyo jajab $343 hadda targetkeyga waxaa iga dhiman $1,000 oo nadiifa ballanti qofka aan la galay laakiin ani ahaan marka lii eego 3,000 iga dhinaanayso $2,000 nadiif ah qofka targetkiisa iga dhiman ani ahaana dabcan 4,000 dhiman $7,786 hadeena gamega saddex araw inaa kaga degto laakiin riski aa qaatay hal mar araw inaa hit garaya list ilaa 5 ilaa 6 meelahaas ugu degto $3,500 oo nadiif ah naga dhiman bale istaalkeyga waa bedeli doonaa haddii 4,500 ka hoos maro
$382 hadda akoonkeyga ku jirto almost in qofkii dealka aan wada galnay heshiiska dabcan 8,000 uu ahaa 8,000 waa hit gareeyay hadda $1,000 kaliya waxaa naga dhiman hadeertaan 10,000 waxaa naga dhiman kaliya $1,000 oo nadiif ah kan haddii 2.9 xitaa uu gaaro waa ku qabnaa ama 2.75 dabcan muusa gaarin meenisa halkaa naga soo gaaray soo marka kunkan ayar oo urursan doonaa 1,500 oo nadiif hadda naga dhiman laakiin markan wax riski ma qaadan doono waxaan isku dayeynaa inaan si tartiib dabcan uga soo kabano almost 2,000 hadda meenisa nagu jirto 2,000 waa 2,000 ee dabcan asa profit ahaan shakhsiyan aan lahaa 8,000 qofka dabcan ma rabo inaan ka hoos maro saddex mar hadda khasaarnay 2,500 hadda naga dhiman markaan 7,000 dabcan ma rabo inaan ka hoos maro markii labaad oo dabcan 8,000 inaan ka hoos maro ma rabaa dhahay 7,000 sidoo kale inaan ka hoos maro ma rabaa dhahay almost targetkii waxaa iga dhiman $300 oo keliya haddii aan sii saarnaan lahaa almost lacagta haystay laba jibaarkeeda haysa lahaa laakiin ma rabo marka la hadda khasaarnay $300 darteed hadda 1,300 meel isugu jirnaa almost haddana $308 naga dhiman laakiin markaan mar dambe risk ma qaadan doono ayar usoo kabaneynaa $600 waxaa isku dayayaa inaan kala dhigo 2 ilaa 3 mar 700 waa weliba markaan intaan dhigayaa waxaan isku dayayaa meel dhow inaan kaga degto haddii aan markaan ku khasaaro kuwa kale dabcan waxaa dhigayaa oo 9,000 wixii ka koreeyo lacag halfkeed iyo halfkeed almost hadeertaan waxaa hit gareeyay $10,055 muuqaalkana dabcan waxaa ka bilaabay $5,000 halka dabcan qofkan lacagta uu ciyaaraya kasoo bilaabay $4,000 aana ku wada balanay inaan 8,000 u gaarsiiyo wixii ka badan dabcan aan lahaado soo marka wixii ka badan aan hadeertaan waa sii ciyaari karaa laakiin ma rabo oo waxay ku noqonaysaa riski sidoo kalena focuskayga dhumaayo $10,000 waa target fiican $2,000 asa profitna waa lacag macquul oo fiican oo one night qof uu shaqeyn karo soo marka targetka hadeertaan sidaas ku hit gareeyay waxaan rajeynayaa in muuqaalkan wax badan ka fahantay sidoo kale dhalinyaro fara badan waxaa laga yaabaa inay isdhahaan games fara badan oo dabcan loos gareynaya inuu ka degto gameska faraha badan sababta loos gareynaya waxay tahay 1 game ilaa 2 game in lacag fiican aan ku dhursado oo meesha aan rabo ama limitka ama targetka aan leeyahay kaga degto sababtaas aan keenaysa in aan dhowr game aan loos gareeyo welibana istiraatiijiyada hore aan ku ciyaaray 1.5 automatically hadeertaan waxaa arki kartaa inaan bedelay taasoo dabcan lacag aan ururinay ahayd waqti fara badan iga qaadanaysay laakiin hadiiba akoonka lacag badan ay ku jirto crash gameka easy way lacagtaas inaa 2 jibaar iyo 3 jibaar ba u bedesho laakiin waa inaa isxakamaysaa oo mar walba iska ilaalisaa riskiga limitka aa ugu talagashana dabcan aad ka hoos marin sidoo kalena dashboardka dabcan si fiican isaga hubiso dashboardka hadaa la socoto mar walba safe tahay oo adiga 10 ilaa 15 game ilaashato game 10 uu soo gaarin oo kale gameska ku xiga markaas lacag fiican hadii aad dhigato at least 6-7 meelahaas ku gaari karaan anaad gamekii ugu sareeyaa dabcan meel fiican kaga degtay 8 ilaa 9 ilaa 7 meelahaas kaga deganay oo 10 wixii koreeya dabcan automatically risk waa iyadana adoo dabcan lacag fiican haysta xitaa sababtoo 10 wixii koreeya meesha gaari karaan adii moogid laakiin gameka hadii 10 uu ku gaaraba dabcan automatically uu ku qarxay marka xariijinayna muuqaalka wax badan ka fahansiiso kale aad ka faa'iideysan doonto marka hadii daawashada ku wareysay muuqaalka xasaas malka ay codsanayna subscribe sharato
muuqaalkan aad like saarto saaxiibadana la wadaagto. waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan.